waa mar kale iyo barnaamijkeenii talo iyo tusaale ee aan kusoo qaadanayay arrimaha qoyska maalin walbo jimco ah. barnaamijkaas oo kusoo bilowday aasaaska qoyska, sida loo soo dhisi karo, sida waxyaalaha burburka looga ilaalin karo. intaasaan kusoo qaadanayay waa qaybtii 9aad maanta. qaybtii 8aad iyo qaybtii 9aad waxay ahaan iyagana laba qodob oo muhiim ah oo aad u keeno burburka qoyska. qaybtii 8aad waxaa lahaa dumarka oo gooni u ahayd, tanna ragga iskale ay gooni u tahay. markuu soo dhawaada dhammaantiin walaaladee, barnaamijka sidaan noogu bilaabanaya la socdana ilaa dhammaadka insha allah. bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa Cafiifa iyo mar kale channelkeena Cafiifa Channel. kusoo dhawaada dhammaantiin walaaladee meel walbo aad joogtaan. waxaan idin leeyahay jimco mubaarak, jimco kariim. ilaahay maalinta jimcada fadligeeda iyo khayrkeeda hana waafajiyo. ilaahayna inteena xanuunsan ha caafiyo, inteena dhimateen ilaahay ha u naxariisto, inteena caafimaad qabtan ilaahay ha u siyaadiyo, inta dhibaatooyin kale ay haystaan ilaahay ha ka dulqaado, dhammaanteena ilaahay khayrka iyo wanaagga hana waafajiyo. waa barnaamijkeeni talo iyo tusaale ee arrimaha qoyska aan kusoo qaadanayo maalin walbo oo jimco ah. barnaamijkaasuu koowaad kusoo bilowday, maantana noo maray qaybtii 9aad. qaybtii 8aad oo kan ka horeysay iyo qaybtan 9aadna waa laba qodob oo muhiim ah oo burburka qoyska ayagana qayb weyn ka ah. tii hore dumarkii gooni u ahayd waan uga soo hadlay 8aad. qaybtan 9aadna raggii gooni u tahay oo ayadana aan rabaa inay ku baraarugaan oo ay ka digtoonaadaan dhinacaas burburka oo ay dhankooda aad uga ilaaliyaan. marka wuxuu ku bilaabanayaa qaybtan maxay ahayd labadan qof waa laba qof oo is aaminay. qofkan dumarka ahna wuuba idin maxay ugu aaminay qofkan uu nolosha la qaybsanayo oo naftiisii ugu muhiimsaneed uu ku aaminay in ay nolol wada qaybsadaan. marka waxaa dhici karto oo ayadana u baahan in aad loogu baraarugo is aaminadaakaas ay is aamineen. waxyaalo badanaa la isku aaminaa oo markii la wada shaqeeyo kale oo lagu heshiiyo in dhaqaale la sameeyo, taasna aaday u heshiiyaan oo ay kulligood ma ahane qaar ay badankooda ay samaystaan oo ay dhahaan wax horumarkeena iyo aan ku samaysano nolosheena waa in aan ku samayno reerkeena iyo ubadkeena mustaqbalkeena. oo ay markaa labada qofood ay wax meel wada dhigaan oo ay dhaqaale ururiyaan oo maxay dee labada qofood isku mid ma ahan. dad dadaal badanaa jiro, dad labaduba aan waxba aan qabanaa jiro, dad isla dadaalaa jiro labada qofood, dad labada qofood qof lagu baxsadaa jiro oo qofka kale uusan dadaal iyo waxyaalahaas uu ku baraarugin. marka labada isfahanto aa laga hadlayaa oo markaa ku heshiiyo inay dhaqaale sameeyaan oo labadooda isla gurmado oo isla soo sameeyo shaqaalo isla shaqeeyo in wax meel wada dhigaan ku heshiiyo. markii wax meelshii ay wada dhigayeen ay u gaareen sidii ay ka rabeen oo wixii ay ku samayn lahaayeen ay hor ugu wada tashteen ama ay dib uga tashan rabeenbo, laakiin kor iyo hoosba ay wax meel isla wada dhiganayeen. waxaa dhacda mararka qaar inay ragga waxaas iyaga la boodaan oo ayaga say doonaan ka yeelaan oo ayaga ay qaarkood ay ku bixiyaan maalaa yacni inay isaga damaashaad tagaan intay dhahaan wadankeen tegaynaa oo maxay ahayd wax kasoo sameynaynaa hanti oo hadday noqon laheyd guryo, hadday noqon laheyd hanti kale ganacsi waxbaan kusoo sameynaynaa dhahaan, laakiin ay uga dhamaato waxaan loo joogin iyo maalaa yacni uga dhamaato wixii intaa lagu soo dhizaayo oo lagu soo howloonayo ee qaarkood maalaa yacni kusoo dhameeyaan. kuwaas waa qaybta in khayr mas-uulada ee kulli mooda ah ragga kullina mooda xumo. marka in saas wax ku halaysaa jirto oo wax saa ku dhameyso iyo maxay ahayd qayb kale oo ayagana wax sameeyaan laakiin wixii ku sameeya wax qofkan kale aysan ku qancin oo maxay ahayd xaaskooda aynan ku qancin oo maxay ahayd intay iyaga wax iskaga sameeyaan ama ganacsi aan laga fiirsan ku sameeyaan oo aan muxuu noqon doonaa la dhihin oo iska dhex galaan ku sameeyaan. taasna way dhacdaa. iyo in ay sameeyaan oo kale qaarna ay dhahaan waxaan ku sameynaynaa guryaan ku dhisaynaa oo waxaan ku sameysanaynaa dhaqaalo oo maxay ahayd qaar
guryaha markay ku dhisaan oo kale oo boosas iyo ama boos ha noqoto iska ahaa bannaan ama ha noqoto mid in la dego lagu gatay oo deegaan ahaan markaa loo gatay guri la dhisay oo la habeeyey oo la hagaajiyey oo markaana lagu dhahay muxuu ku yiri xaaskiisoo kale tusaale waa labadeena gurigan ugu naga sida aan ugu soo aruursan dhaqaalaha aan ku sameynay haddana waa hantideeni oo aan wada lahaynay labadeena marka iskale haddana uu saas ugu sheekeeyay iidan ay ka sugaysay waxaa dhacday in uusan kala boodo uusan asaga isku soo koobo oo iid meesha ka saaro taasna way keentaa iyadana burburka taa dhaqaalaha la daadiyo meel cidla lagu daadiyo way keentaa tan wax uun lagu sameeyo waxay noqdaan oo aan iidi lagu soo dirin oo inay qayb ka tahay aan la gelin booskeedii ee shalay ay ka rajeynaysa inay ka muuqato aan la gelinin oo laga saaro taasna way keentaa iyadana burburka marka intaasaan ragga rabaa iyagana inay ku baraarugaan oo ay iska ilaaliyaan oo qofkan sidii heshiiskii shalay uu ahaa oo la soo galeen ay kula socdaan qofku wuxuu asaga shaqsigiisa u lahaa ama uu asaga samaystay cid kula daba dhegaysa maba lahanba hadday kula daba dhigtana qofkaas asagaanba uga gar helaynin qofku wuxuu u leeyahay asaga shaqsigiisa laakiin wixii laisla wada leeyahay oo kale oo heshiiska lagu wada galay waxa fiican heshiiska lagu galo in lagu wada wado laba qof oo heshiis isu keena iyo ganacsi aaba kasoo baxaanba maxay ahayday heshiiska iyo qaabka ay ku wada shaqaysanayeen marka idinku iskaga sii dhow oo dad maxay ahayday reer wada lahaa oo ilaahay ubad siiyo ubad wada korsanayay waa inay meeshaas ay ka muuqataan marka dadkii oo loogu idinkugu jiray oo intaasoo dhanba idinkaga muhiimsanaa oo noloshiina dhan ahaa oo dhinac idinka taagnaa mar walbana dumarka kuwa iska way jiraan qayr mas-uulada ah oo sida raggaba ay u leeyihiin dumarkana way jiraan qaar saas ah laakiin inta fiican badan dumarka oo weliba ragga xataa uga sii fiican hadday noqoto dhaqaalaha oo ayaga dhaqaalihii ay sameeyaan oo sida hadda la arkaba ee dumarka badi lagu baxsado marka waxaa fiican labada qofood heshiiska iyo wadajirka inay ku socdaan taas marka aaday u keentaa burburka waxaan ugu soo kooba ragga inay iyagana ay aada u ogaadaan oo laga jiro burburka qoyska taasaa iyadana aada u wanaagsan waan maanta qaybtan sagaalaad maxay ahayd aan idinku kusoo qaatay ragga inay ogaadaan waxyaalaha laisla leeyahay waa idinkala soo hadlay sida aniga fikradeyda ay tahay wixii maxay ahayd la kala leeyahay oo dumarka gooni u leeyihiin waa lagu baraarujiyey ayadana qaybtiina adinkana waa idinku baraarujiyey marka intii aniga ay fikradeyda ah dhammaantiin waa idinku baraarujiyey oo aan jeclaha walaalada inaan la qaybsado oo sida la iskaga ilaalin karo burburka fikradeyda inta aniga karaankeyga ah waa idin la qaybsaday marka haddii aad waxaad qaadan kartiin ay idinla noqdaana waa kaas intii hore u fahansaneeday oo sidaas isu ilaalin jirtay oo noloshooda u wadatayna alxamdulilah ilaaha u siyaadiyo inta ka faa'iidaysan kartana waxaan idin leeyahay ka faa'iidaysi wacan marka walaaladii waxaan rajeynayaa inaa saas wanaaga looga wada shaqeeyo dhammaantiin nafteyda iyo naftiinaba aan kula dardaarmaya inaan sidaas aan ku noqono dad maxay ahday wadajirkooda iyo familadooda iyo qoysaskooda burburka ka ilaaliyo inaan noqono dhammaanteena ayaan idin rajeynayaa marka waa kaa maanta barnaamijka qaybtan sagaalaad qaybta tobanaadna soo xiritaankii aan ka dhigaya jimcaha dambe oo kulli aan nafteyda iyo naftiinaba kulli aan kula dardaarmaya aan kasoo dhigaya barnaamijka tale iyo tusaale waxyaalo badan aan kusoo qaadanaya oo noo sii soconaya haddii ilaahay idmo oo ii saamaxo naftana inaan soo gudbiyo waqtiga aan u helo cimri iyo caafimaad waa idinla soo qaybsan doonaa fiidiyoga marka haddii aad ka hesheen sheerdhaha walaaladiina lasii qaybsado kheyr ayaan idin rajeynaya dhammaantiin walaaladey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu